halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 5 galabnimo oo gow ah waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada Facebook iyo boggeena internetka ee bbcsomali.com kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal waa galabnimo talaada ah 1 bisha Agoosto ee sanadka 2023 barnaamijkuna waa barnaamijkii dunida iyo maanta waxaan ahay Kawthar Maxamed Cabdulaahi qodobada barnaamijkan idinkugu haynana waxaa ka mid ah golaha maamulka SSC oo maanta doortay qayb ka mid ah gudoonkooda Puntland oo u dabaaldegaysa 25 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay haddaba muddadaas kadib Puntland ma gaartay halkii laga rabay maya umana dhawa sababtu waxa weeye dabcan inta Puntland ay jirtay meel nabad ah oo deegaan la isaga socon karo sidii la doono loo socon karo ayay ahayd dhulkaas horumarin buu u baahan yahay kaabayaasha aan kuu sheegay in badan oo kaabayaashii ah baan la dhisin maxkamadda gobolka Banaadir oo markii labaad dhageysatay dacwad ka dhan ah saraakiil ka tirsan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya maamulka Gedo oo sheegay in sharciga lala tigsan doono rag hubaysan oo shalay rasaas ku furay diyaarad waday ciidan military ah oo ka degtay magaalada Garbahare military ahna qaab military baa loo xalin doonaa shuruudo ciidanku leeyahay shuruudaas la marin doonaa ciidii kale oo shacab ah ama Malaysia kale oo kamid noqotay nin baa ku jiraan maleynaya halnin asaguna sharciyo kale oo lagu dhaqmaa jiro oo la marin doono talisada military ee dalalka Mali iyo Burkina Faso oo garab istaag u muujiyay Niger oo dhawaan u afgambi ka dhacay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiina ay ku jiraan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan dunida iyo maanta oo uu soo saaray Maxamed Cabdiraxmaan marka hore dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka caalamka ee BBC-da waxaana u diyaar ah Jamaal Cabdiraxmaan mahadsanid Kawthar Maxamed ruushka ayaa sheegay inay burburiyeen 3 doonyood oo ah kuwa aan cidna wadin oo laga leeyahay dalka Ukraine kuwaas oo doonayay inay weerar ku qaadaan 2 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ruushka oo marayay badda madow wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay saacadihii hore una ka dhacay meel 340 kilomitir koonfur galbeed kaga beegan Silverstone ee Crimea waxaa sidoo kale hadda ku andacoonaysa in ciidamadeeda badda ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine kuwaasi oo bartilmaameedsanayay maraakiib ganacsi oo ruushka leeyahay oo ku sii jeeday marinka Bosporus shaqaalaha wasaaradda horumarinta dhaqaalaha ee ruushka ayaa hadda loo sheegay inay ka soo shaqeeyaan guryahooda kadib markii diyaaradda aan duuliyaha lahayn lagu dhuftay dabaq sare oo ay wasaaraddu ku leedahay xaafadda ganacsiga ee ku taala magaalada Moscow isla dabaqan ayaa 2 habeen ka hor lala beegsaday weeraro diyaaradeed Faransiiska ayaa sheegay in muwaadiniintiisa ka dadgureynayo dalka Nigeria kadib afgambigii dhicisoobay ee toddobaadkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in sidaasi u yeelayso weerar gacan ka hadal ah oo safaaradda Faransiiska ay ku qaadeen dad mudaharaadayaal ah xaddi iyo xaqiiqda ah in hawada la xiray muwaadiniinteedana aysan xor u ahayn inay ka baxaan iyagoo isticmaalaya dulimaadada ganacsi tan iyo 2020 hogaamiyaasha militarigu waxay la wareegeen awoodda 4 wadan oo galbeedka Afrika ah urur goboleedka ECOWAS ayaa ku hanjabay in awood u adeegsan doonaan sida ay dib ugu soo celin lahaayeen madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum hogaamiyaasha militariga ee Burkina Faso iyo Mali ayaa sheegay inay u arki doonaan faragelin kasta oo militari shisheeye ee Nigeria inay tahay ku dhawaaqid dagaal oo iyaga ka dhan ah Sweden ayaa sheegtay in laga yaabo in ay booliska siiso awood ay uga hortagayaan dadka gubaya Quraanka Kariimka ah ra'iisul wasaaraha dalka Ulf ayaa ku adkaystay in baadi'ida xuriyatul qowlka ay sii jiri doonaan laakiin wuxuu sheegay inay laga maarmaan tahay in la qaado tallaabooyinkan ka dhanka ah gubista Quraanka haddii ay jirto khatar cad oo amniga qaranka ah ku soo wajahan dhowr qof ayaa meel fagaara ah ku gubay kitaabka Quraanka Kariimka ah dalalka Sweden iyo sidoo kale Denmark waxaana arrintaasi si caro leh uga jawaabay dalalka muslimiinta ah oo dadka muslimiinta ah ku nool bariga dhexe Britain ayaa dalilka ba'an oo loo geysanayo dadka Yaziidiga ah loo geystay dalka Ciraaq ku tilmaamtay xasuuq in ka badan 5,000 ayaa la dilay markii kooxda isku magacaawda dowladda Islaamka ay ka qabsatay dalkoodii hooyo 2014
ugu dambeyntiina imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa inay 3 jibaari doonto mushaaraadka dhakhaatiirta Israa'iil haddii ay u guuraan wadamada khaliijka. Tallaabadan ayaa daba socota shaqo joojin hal maalin ah oo toddobaadkii hore ay dhakhaatiirta Israa'iil ku sameeyeen dib u habeyn dhanka sharciga ah oo ay dad badan aaminsan yihiin inay dhaawici doonto dimuqraadiyadda. dib idinku celiyo Kowsar iyo qaybaha kale idaacadda. mahadsanid Jamaal. dhegeystayaal markana qaybaha kale ee barnaamijkeena dunida iyo maanta. hagaag galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal aan ku bilaabnay ee golaha maamulka SSC oo dhawaan ay magacaabeen isimada ku sugan Laascaanood ayaa maanta doortay qayb ka mid ah gudoonkooda. Jaamac Yaasiin Dhaloole ayaa loo doortay gudoomiyaha golaha dhexe ee hawsha kala wareegay garaadada. Laascaanood ayaa ku dhawaad 6 bilood waxaa ka taagan colaad u dhaxaysa xoogaga deegaanka ah iyo ciidamada jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland. welina wax xal ah lagama gaarin colaadaas. gudoomiyaha cusub ayaa goor dhaweyd aan kula hadlay khadka telefoonka ee magaalada Laascaanood. waxaa laga dharagsan yahay dadweynaha ku nool deegaanada SSC iyo arintooda muddada dheer soo jiitamaysay iyo 6 bilood ee ugu dambeysay halganka iyo dagaalkii ay kula jireen ciidamada duulaanka iyo xaqdarrada deegaanadan ku jooga ee Somaliland. sida daraadeed go'aanadii mar hore ka soo baxay golaha dhaqanka ka kooban 45 xubnood oo lagu magacaabay hoggaanka SSC Khaatumo. golaha yaga 45ka ee ay soo dhiseen deegaanku ayaa wuxuu ka kooban yahay 2 gole dhexe iyo gole fulineed. hadda waxaanu dooranay oo anigu aan gudoomiye u ahay gudoomiyihii golaha dhexe. marka si gaar ah hawshaadu maxay noqonaysaa? walaale waxay noqonaysaa ka shaqaynta arrimaha deegaanada SSC Khaatumo, gaar ahaan maamulidda golaha 45ka iyo ku shaqayntiisa iyo sidoo uga qayb qaadan lahaa oo u maamuli lahaa hawlaha u yaala iyo waajibaadka loo igmaday ee ay u igmadeen dadka deegaanka. doorashada marka ay dhacday gudoomiye ku-xigeenka koowaad lama dooran oo waxaa soo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad. marka maxaa loo dooran waayay? booskaas muxuu u bannaan yahay? waa la dooranayaa, musharaxiintiisuna way isa soo qadimi doonaan, laakiin haddeerto musharaxiintiisii weli ismaysan soo qadimin. waana la dooran doonaa si nadiifana loo dooran doonaayo hufan. arrimaha Laascaanood oo kale markaan eegno garaadada hawshaas waday oo looga dambeeyay, hadda ma adinkaa sidaa kula wareegaya? golahan 45ka baa la wareegaya. isimaduna iyaga golahan dhisay oo u igmaday inuu maamulo hogaaminta arrimaha SSC hadday tahay dagaalka iyo hadday tahay arrimaha kaleba. marka maxaa ka mid ah waxyaabaha aad xooga saari doontid oo idin qorshaysan? koowaad waxaa ka mid ah inaanu deegaanada ka saarno ciidamada xaqdarrada iyo sharci darrada ku jooga ee uu u taliyo Muuse Biixi iyo maamulka Somaliland, oo aanu ka saarno deegaanka. dabadeedna aanu dadkayagii barakacay oo qaxay dib u dejin u samayno oo noloshoodii iyo amnigoodii iyo xasiloonadoodii la soo celiyo. dadka Soomaaliyeed day hoggaan siyaasadeed tahay iyo hadday cid kale tahayna xiriir wanaagsan iyo maxaa la yiraahdaayay waji cusub aanu la bilaabano. maxaad is leedahay caqabado ah oo aad la kulmi kartaa? nolosha caqabada kama maaranto waliba bulsho marka la hogaaminayo, laakiin waxaan ku kalsoonahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala fadligiisa iyo dadkayaga isku duuban oo heeganka ugu jira inay deegaankooda xoreeyaan, noloshoodiina sidii dabiiciga ahayd iyo si ka fiican ay ku soo ceshadaan. marka alxamdulillah waxaan ku tashananaa dadkayaga ciidamo nagu filan waa haysanaa, talo iyo aqoon iyo khibrad ku filan waa leeyihiin dadka deegaanku waxaa ka buuxa aqoon-yahan iyo khubaro dhinac walba oo nolosha ah. marka challengeska waa imanayaan, laakiin fadliga Ilaahay iyo waxaa ku kalsoonahay awoodaha ay leeyihiin dadka reer SSC Khaatumo oo isku duuban danahoodana u midaysan. haddeer maalmahan waxaa la hadal hayay inaad doonaysaan inaad maamul gaar ah noqotaan. qorshaha ma idinkugu jirtaa inaad maamul gooni u taagan noqotaan oo ka madax bannaan Somaliland iyo Puntlandba? waxaanu dooranay hoggaanka arrimaha SSC Khaatumo oo maamulaya arrimaha haddeer taagan iyo wixii dambe oo loo dhaqaaqi doono oo tala ah. haddeerto hawlo waajibaad waaweyn baa noo yaala oo aanu ku mashquulsannahay oo aanu kala habeyntooda iyo shaqadooda galaynaa. marka iyana waa hawl noo taagan, waana noo qorshaysan tahay. laakiin haddeer waa ogtahay deegaankayaga ciidan baa dul fadhiya. haddeer priority-ga koowaad ciidankan inaanu deegaanka ka saarno, wixii kale oo
nolog madayna waa noogu jiraan laynka oo waa ka shaqeynana iyagana oo dadka deegaanku ay xuquuq iyo noloshooda iyo danahooda ay ku helayaan jaamac yaasiin dhaloole ayuu kaasi ahaa loo doortay gudoomiyaha golaha dhexe ee SSC oo ii waramayay markana Puntland ayaa maanta u dabaaldegtay 25 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay maamulkaas haddaba 25 sano kadib maxaa u qabsoomay khatar intee leeg ayuu soo wajahayaa maamulkaas waxaan su'aalahaas weydiiyay Professor Cabdirasaaq Cusmaan Jurile senator hore oo kamid ah asaasayaasha Puntland dhinaca adeega bulshada wax badan baa ka qabsoomay maalintii Puntland la dhisay jaamacada ma jirin iskuuladu waa yaraayeen cusbitaal ma jirin intuba adeeg dadka la siinayo ayay bixiyaan haddeer jaamacadu boqolaal dhaafaya macaahid boqolaal dhaafaya xarumo badan oo cilmi baaris ah oo PDRC ka mid tahay dad badan oo wax soo saar maalgashi lagu sameeyay human development oo shahaadada koowaad tan labaatan saddexaad oo PhD baa laga qaatay hadda Puntland xagga caafimaadka cusbitaal kooban baa ku yaalay hadda MCHO iyo bara caafimaad meel aanay ka jirin Puntland waa yar tahay korontada markii la yiraahdo magaalooyinka oo dhan koronto waa jirtaa kaabayaasha dhaqaalaha waxa u qabsoomay airport-a la dhisay sida Boosaaso Garowe kii Gaalkacyo la dayactiray Puntland waxa ka hirgashay in haddaad lacag haysato ay ku furan tahay inaad waxaad doontid inaad soo gadan karto maskax inay soo gadan karaan aqoon inay soo gadan karaan dad baa isu tagay lacag isku darsaday waxay go'aansadeen inay deked weyn ka dhisaan Galacad waxay soo gateen maskaxdii bay soo gateen oo Turkiga ka soo gateen injineero dad aqoon u leh shaqadaas deked weyn baan hadda ka dhiseen marka 25 sano kadib ma isleedahay Puntland waa ay gaartay meeshii laga rabay maya umana dhawa sababtu waxa weeye dabcan inta Puntland ay jirtay meel nabad ah oo deegaan la isaga socon karo sidii la doono loo socon karo ayay ahayd dhulkaas horumarin buu u baahan yahay kaabayaasha aan kuu sheegay in badan oo kaabayaashii ah baan la dhisin waxaa ka mid jidad masalan jidka dheer oo isku xira Garowe iyo Boosaaso oo dawladda Talyaaniga ay maalgelisay waagi Maxamed Siyaad Barre xukuumaddiisu dalka joogtay jidad baa ka baxaya magaalooyin xeebaha ku yaal oo badan baa jira magaalooyin aan xeebaha ahayna dhinaca kale ee jidka oo magaalooyin caasimado tuulooyin baa ku yaal jidadkii aadi lahaa magaalooyinkaas oo jidka weyn ka leexan lahaa hal jid oo dadku isugu tageen kaliya baa laga dhisay isaguna weli ma dhammaan waa ceel daahir iyo baran weeye jidadkaas oo dhan waxay u baahan yihiin maalgelin bay u baahan yihiin haddii aan eegno xiriirka Puntland kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya marar badan oo hore iyo haatanba meel xun buu marayaa maxaa Puntland u gaar ah oo ay isku hayaan dawladda federaalka horta waxaan ku sheegayaa Puntland dawlad goboleedkii ugu horeysay oo ka dhisanta dalka weeye inay dawladda hadhisantona Puntland waxay ku lahayd door muhiim ah bay ka soo qaadatay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo madaxweynihii u horeeyay oo Puntland wuxuu ahaa madaxweynihii dawladdii lagu soo dhisay Embakasi oo Kenya ah halka lagu soo doortay buu ahaa madaxweyne xoog uga shaqeeyay in dawladdii dhexe dhisanto buu ahaa ninka xoog khasabka ku keenay dawladdii Nairobi lagu soo dhisay magaalo madaxda buu ahaa ninkii ugu horeeyay oo Villa Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre kadib madaxweyne ah oo soo fariistay buu ahaa dadka waxgaradka oo Puntland jooga aragti bay ka qabeen dawlad Soomaaliyeed dhismaheeda qaabka dawlad Soomaaliyeed loo dhisi karo si la isugu soo celiyo waxa jirtay baahi weyn oo ahayd in xoog looga fakaro dadkii waxgaradkii waxay isku raaceen Soomaaliya oo heshiis ah oo wada jirta waxay ku iman kartaa in qolo walba meesha ay joogto inay dadku heshiiyaan iyagoo marka wada heshiisa waxa la isugu keeni karayaa federal nidaamka la yiraahdo waxa timi marka
aragtiyahaas in maxaan ku idhaahdaa dalkii soomaaliyeed dib u soo celintiisa dhismihiisa hay-adihii dawliga ahaa qaabka maamulka ku imanayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay u qaybsanayaan awoodaha siyaasadeed iyo kuwa maarayn intaba dood baa ka furantay doodaha ka furantay waa lagu kala aragti duwan yahay waxaa jirta cabsi ah in xiisada ka dhalatay doorashada la filayo inay dhacdo horaanta sanadka 2024 ay meel khatar ah marayso oo ciidamada diidan doorashada ay shalayna sheegeen in ay burburtay xabad joojintii arrintaas khatar intee la eg ayay ku yeelan kartaa xasiloonida Puntland mar kasta oo doorasho ka dhacdo adduunka ma aha Soomaaliya kaliya ma aha maxaan ku iraahdaa Puntland kaliya meeshaad joogto hadeer doorashadii dhacday qalalaasihii ka samaysmay ilaa maanta soo ma socdaan meelba ragba waa ku rageeda meelba dadka jooga iskhilaaf baa imanaya iskhilaaf doorasho ku yimid Puntland uguma horeyso Washington inay ka dhacday baad ogtahay Puntland caqabad la'aan ma hayn laakiin kartida iyo awoodda iyo rabitaanka reer Puntland mar walba wuxuu ahaa inay arrintaas u fariistaan inay cilad bixiyaan oo dawladdii nolosheedii aysan istaagin caadadaas waa lahayn caadadiina weli waa jirtaa kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdirasaaq Cismaan Jurile senator hore kana mid ah asaasayaasha Puntland oo iga waramayay 25 sano kadib waxyaabaha uu qabsoomay Puntland iyo qatarta uu maamulkaasi wajahayo weli halka aad naga dhageysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba markana maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad dhageysatay dacwad ka dhan ah saraakiil ka tirsan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo lunsasho lacago ka mid ah dakhliga dawladda saddex eedaysane ayaa maanta la soo taagay maxkamadda haddaba dhageysiga dacwaddaas waxaa si dhow ula socday wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan oo goor dhaweyd ii waramay كوثر maanta mar kale ayaa saddex eedaysane la hor keenay maxkamadda gobolka Banaadir kuwaas oo ka shaqeynayay wasaaradda maaliyadda iyo banka dhexe una joogay gegida diyaaradaha aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho horey ayaa saddexdan eedaysane loo keenay maxkamadda horey xeer ilaalinta ayaa u soo bandhigtay eedaha ay u hayaan raggan oo muddo dheer la dhageysanayay maanta mar kale ayaa saddexdaas eedaysane haddana la hor keenay maxkamadda maanta waxay ahayd waqti aad u dheer ilaa goordhow maxkamaddu way socotay dhageysigeeda baare ka socday xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka ayaa goobta yimid halkaasoo uu ku soo bandhigay baarista uu ku sameeyay arrimaha ku saabsan wax istaamarinta ee lagu eedeynayo raggan waqti dheer ayay qaadatay soo bandhigista baaristiisa laakiin haddana waxa waqti kala qaatay su'aalo badan oo ay weydiinayeen qareenada u doodaya saddexdan eedaysane oo su'aalo badan ka weydiiyey warbixinadooda ama warbixinta ay keeneen xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka mararka qaarkood garsoorayaasha maxkamadda ayaa laftigoodu su'aalo weydiinayay taasi waxay keentay in waqtigu aad u dheeraado saddexdan eedaysane waxay ku eedeysan yihiin wax istaamarin iyo lunsasho xoolo dadweyne laakiin ilaa hadda qareenadoodu waxa ay su'aalaha ay u gudbinayaan xiraalinta iyo baaraha xafiiska hanti dhowraha ka socday kuwaas oo ku saabsan eedaha ay soo jeediyeen marka dabcan waxay ahayd maalin dheer dad badan ayaana ka soo qayb galay dhageysiga dacwadda sidaas oo kalena telefishinada maxalliga ayaa si toos ah Kawthar looga daawanayay Ibrahim marka ma jirtaa waqti cayiman oo loo qabtay in lagu soo gabagabeeyo dacwadan maya ilaa hadda waxaa socota dhageysiga dacwadda waxaad ogtahay dacwadani way dheer tahay eedaysanayaashuna way kala duwan yihiin waxaa jira eedaysanayaal kale oo afraha oo ka tirsanaa xafiiska ama hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo iyana xitaa madaxdeedii sare ee isku xigxigay ku eedeysan yihiin in ay lunsadeen xoolo dadweyne marka dabcan kiisaskaas iyo kiiskan kuwaasi laba jeer baa maxkamadda la hor keenay kuwana waa markii labaad ee maxkamadda la hor keeno dhageysiga dacwadda ayaa socda eedaha loo jeedinayo cadeymaha qareenada difaacayo iyana ka jawaabaya waqti dheer ayay qaadataa maalin kasta marka doodani ay ama dacwadani ay bilaabato marka dabcan wax maalin iyo laba maalmood kusoo gabagaboobaya ma aha sidaas oo kalena garsoorayaasha maxkamaddu ma aanay sheegin oo waxay wadaan dhageysiga dacwaddaas marka dabcan waxay dad badan saadaalinayaan inay waqti kale oo dheeraada ay sii qaadan doonto dacwaddan iyo in marka ugu dambeysa go-aan maxkamadeed uu ka soo baxo
ibraahim maxamed aadan wariyaha b b c da ee muqdisho oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay wararka ugu dambeeyay dhageysiga dacwadda ka dhanka ah saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya. markana maamulka gobolka gedo ayaa sheegay in sharciga lala tiigsan doono rag hubaysan oo shalay rasaas ku furay diyaarad waday ciidan militari ah oo ka degtay magaalada Garbaharey. ragga weerarka geystay oo la sheegay inay ahaayeen askar dowladeed iyo qof shacab ah ayaa rasaasta ay rideen waxaa ku dhaawacmay mid ka mid ah ciidamada diyaaradda saarnaa. gudoomiyaha gedo cabdulaahi cabdi jaamac cabdulaahi shimbir ayaa sheegay in falkaasi ay geysteen askar diidan isbeddel lagu sameynayo ciidamada dowladda federaalka ka jooga magaalada. amniga garoonka Garbaharey waxaa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan ATMIS waxaana horey looga celiyey diyaarado ay ka mid tahay mid waday gudoomiyaha haatan. gudoomiye cabdulaahi shimbir ayaa sida ay wax u dhaceen uga waramay Axmed Yuusuf Cadceed. diyaarad waxay ahayd diyaarad ciidan ka soo qaaday doolow way dejisay ciidanka marka hore ciidamada halkaana la isku bedelayay ninka taliyaha guutada ahaa oo hore la bedelay taliyaha guuta cusub ay socday oo soo maray dhinaca doolow diyaaradda afartan qaad bay ahayd meelahaas marka diyaarad waxay ahayd keentay magaano alaab iyo waxdaas meesha keentay annaga codsanay inay ciidanka noo soo qaado halkaan noo keento ciidanka marka safarka koowaad caadiga u yimaadeen oo si nabad ah u yimaadeen tii dambe oo loo noqday oo laba diyaaradood camal bay ahaayeen ee loo noqday bay waxaa dhahay hoogaada uu fawdaha ka dhacday airportkii diyaaradda markii degaysay baa dad shacab ah oo laba nin meelahaas camal oo qori wadata oo maalahan ka soo baxay Soomaaliya iska wada hubaysan tahay iyo dhowr nin oo askarti ah oo diidahayay isbedelkii waxaas iyo ka cabsi qabay isbedelkan yimid inuu saameeyo horey dambiye iyo wax u galgalay baa iyo diyaaradda habada ku riday habada diyaaradda gaaray waxaa ku dhaawacmay askarti saarnay ka mid ah marka diyaaraddu saas ay halkeedu sidee ugu suurta gashay dadkan shacabka ah iyo qaar ka mid ah ciidanka aad sheegaysay ee xabadeeyay inay xabadeeyaan diyaarad soo degaysa walba lama filay airportka magaalada hadda taqaan magaalada ku dhex yaala magaalada ku hareeraysan marka magaaladii waa weynaato airportka iyo wixii dhaaftay meelaha hadda munaasib ahayn buu ku yaalaa marka meesha ay ka degaysay waa guryo wey xaaladdu hadda sidee tahay sidee wax ku dambeeyeen aad bay u fiican tahay waxba shidaa male qoladii hadda arrinka geysatayna insha allah sharciga la horgeyn doonaa waxaana gacanta lagu hayaa waxaana waa la daba joogaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo marka way deganta xaaladdu aad bay u deganta wax shidaa male ciidamada la keenay magaalada ee diyaaradda saarnaa maxay ahaayeen imisay sadhan yihiin ciidamada military weeye waa ciidamo military ah weeye waa xoogga dalka weeye diyaaradda marka hore 40 bay keentay abaanduulihii qaybta iyo taliyihii guutada cusbaa oo xilka tirsan lahaa 40 ay ka mid yihiin bay marka hore keentay marka dambana 40 kale keeni lahayd oo sidaas oo kale waxaa kaloo la socday taliyihii qaybta booliska oo isaguna rabay inuu yimaado Garbaharey marka diyaaradda intaas oo ciidan ah ay saarnaayeen maxaa looga taxadari waayey in ay dhibaatadan oo kale dhacdo haddii sidoo kale la ogaa inay jiraan dad ka biyadiidsan isbedelada ciidanka ee la sameeyey wallahi waa lala hadlay oo ayaga wada hadlay ciidanka ayaga wada hadlay saraakiisha laftoodii diyaaradda hore saarnayd baa la soo hadashay wax dhib ah oo intaas gaarsiisan inuu imanayo ma la moodaynin sooma malaynaynin lamana ogeyn hadda wax saas ah waa dad fawdeeyey oo mataqaanaa si aan lagu taligelin ooga baxay meelihii ay joogeen haddaba ma muran baa ka dhex jira ciidamada muran kama dhex jiro wax weyn ma jiraan baan u malaynayaa laakiin waan u malaynayaa isbedelka wax ku saabsan inuu jiro waa wax un militariga ku xiran de aniguna hadda militari maahi waa layga badiyaa waxaas marka sidee ku dambayn kartaa haddii hadda ay dhibaatadan oo kale ka dhacday sidee loo xalinayaa wallahi waxaa loo xalinayaa wixii militari ahana dee qaab militari baa loo xalin doonaa shuruuc buu ciidanku leeyahay shuruucdaasa la marin doonaa ciddii kale oo hadee shacab ah ama malaysia kale oo ka mid noqotay nin baa ku jiraan u malaynaya hal nin isaguna dee sharciyo kale oo lagula dhaqmaa jiro oo la marin doono haddii ilaaha yidhaahdo shacabka qabta xaaladda airportka hadda sidee tahay diyaarada ma kusoo degi karaan safe wey airportka waxba dhiba ma qabo naglajahtaasir baa ka dhacday ayadana waxay ahayd un wax un sikadiisa isaga dhacay oo wax ku talagala maaha in marka ciidamada soomaha degan airportka amaankiisuna wuu sugan yahay wax dhibaana kama jiraan sidee lagu xaqiijinayaa in aysan hadda sidan oo kale dhacaynin annaga xaqiijinayna insha allah madnaba ma dhacayaan wax dhacay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gedo cabdulaahi cabdi jaamac cabdulaahi shimbir oo u waramayey Axmed Yuusuf Cadceed weli halka warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee BBC وهجاج ورك عالم كان دب يقول لابنه تلسيدا ميلتري أو هجامين مالي iyo Burkina Faso ayaa sheegay in talaabo kasta oo si xooga xukunka loogu soo celinayo madaxweynihii la afgambiyay ee Niger ay ka dhigan tahay dagaal bareer ah oo lagu qaaday labadaas wadan. Arrintan ayaa daba socota kadib markii urur goboleedka ECOWAS
uu sheegay in tallaabo kasta uu qaadi doono haddii aan xukunka niger lagu soo celinin maxamed bazoum hogaamiyahaas oo hadda u xiran saraakiisha afgembiga samaysay. faransiiska oo waddankaas guumaysan jiray ayaa diyaarinaya in muwaadiniintiisa uu kala baxo niger. dr axmed faarax iidle axmed zaki oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah ayaan weydiiyey waxa loo fasiran karo hadalkaasi ka soo baxay maali iyo burkina faso ee ay ku garab taagan yihiin taliska niger. gobolkan galbeedka afrika ilaa iyo bartamaha afrika 3 sano lasoo dhaafay ilaa 2020 waxaa ka dhacay 7 afgembi ilaa iyo maali oo waqooyiga afrika ilaa iyo suudaan oo bartamaha afrika. markaad sidaa u eegto waxaad arkaysaa in gobolka uu kusoo noqday dictatorka iyo afgembigu inuu kusoo laalaabto oo ay caado ka noqotay. labadan dal ee raba in ay cadaadiska saaraan niger oo burkina faso iyo maali ay ka mid tahayna 2020 buu labada dalba waxaa ka dhacay afgembiyo weliba waddan ka mid labadaasi 2 jeer buu afgembigu ka dhacay. marka ragga maamulaana waa military, laakiin waxay ka hortegayaan waxa weeye nooca afgembiga military ee ka dhacay niger. wararka soo baxaya waxa weeye inay dhinaca ruushka u janjeeraan oo ay kasoo horjeedaan faragelinta iyo joogitaanka dowladda faransiiska oo ay ku eedeynayaan inay rabto inay madaxweynihii hore ee maxamed macsuum oo afgembiga lagu riday in uu ku soo celiyo xilka, sababtoo ah waa dalka keliya ee galbeedka afrika dimuqraadiga ahaa ee ka badbaaday afgembiyada military, iyada oo 1960 markay xornimada qaateen ay 4 afgembi military uu ka dhacay oo kusoo noqnoqday dalkaasi. laakiin intii dambe oo dhan waxaa jiray dimuqraadiyad soo ifbaxaysa oo niger kasoo caanbaxday oo si nabadgelya awoodda dalka la iskugu wareejiyay doorashooyin ay ka dhaceen. maxaa keenay marka in madaxda burkina faso iyo maali ay garab istaag intaa dhan ay u muujiyaan niger? inaad la socoto mooyaane afgembi kasta oo ka dhaca waxa lug ku leh ama taageero siiya waa dowladda faransiiska. waa afgembigii keli haata ee dowladda faransiisku kasoo horjeeday ee gobolka ka dhacay. taasi waxay muujinaysaa in maanta ay taageero ruushka haystaan oo aad muddo nimankii waagarniska ee calooshooda shaqaystayaasha militarigii ruushka u shaqaynayay inay taageero fiican ka helayaan ama ay ballanqaad ka haystaan nimanka hadda afgembiga ku sameeyey ee uu hogaaminayo cabdiraxmaan tuushe. taliska militariga la wareegay niger shalay waxay ku eedeeyeen faransiiska inuu doonayo inuu sii daayo madaxweynihii oo uu dib xukunka ugu soo celiyo waa xukunkii dimuqraadiga ahaa. tallaabo noocaas ah ma qaadi karaa faransiiska? faransiiska waa lagu yaqaanaa horta faragelinta military ee gobolkan guud ahaan ee galbeedka afrika iyo bartamaha afrikaba. maali baanu kusoo aragnay, burkina faso waynu soo aragnay, nigerna kama duwana, laakiin weli faransiisku inuu tallaabadaa qaadayo military kuma una dhawaaqin, laakiin afgembiga wuu dhaleeceeyey. waxaa meesha ka muuqata markaa in ay tahay dagaal qabow oo u dhexeeya faransiiska iyo ruushka oo laisku jiijiidinayo meesha. sidaad la socotaba walaal, wadamadan reer galbeedku ee afrika dimuqraadiyadeeda ma ogola, waayo hadday dimuqraadiyad noqdaan danahoogii intereskii ay ka lahaayeen ee galbeedka afrika ay u badan tahay macdanta laga guranaya meesha way ka baxaysaayo dad shacabku soo doortay oo matala oo la xisaabtamaya iman doona. laakiin dictator ay controli karaan oo isaguna dadkiisa caburiya ayay u baahan yihiin oo dantooda iyo dhaqaalahooduba uu ku tiirsan yahay walaal. maxaa marka ka dhalan kara haddii faransiisku qaado tallaabo noocaas ah? walaal dee colaad baa ka dhalan doonta, insurgency baa ka dhalanaya, dagaalaa ka dhici doona. niger oo xoogaa nasatay oo dictatoradii ka nasatay, dimuqraadiyaddii soo ifbaxday oo dhaqaalaheedu si xawliya u kobcayay, hadday dagaal dib ugu noqoto waxay tusinaysaa in dhaqaale burbur kusoo wajahan yahay, qaxooti badan iman doona wadamada dariska gaar ahaan maali iyo burkina faso. waxay ku tusinaysaa in dhibaato badani halkaasi ay kasoo wajahan tahay. una malayn maayo faransiisku inuu ka guuleysan karo nimankan oo imika aad moodo inay taageero toos ah oo aan qarsoonayn ay ka haystaan waddanka ruushka. sidaad sheegtayba dhowr wadan oo galbeedka afrika ka tirsan ayaa hore afgembiye ka dhaceen, waxaana muuqata in arrintu ay noqotay wax iska caadi ah. maxaa u sabab ah baa la isdhihi karaa? gobolkan horta waa gobolka keliya ee markaad u eegto guud ahaan wadamada afrikaanka ah, especially afrikada madow markaad u eegto wadamada aadka dhaqaalahooda u kobcayo
ayay u badan yihiin oo galbeedka africa maalgashi badan oo wadamada reer galbeedka ka imanaya ayaa jira oo furfur xagga dhaqaalaha oo ay iyaga dhexdooda ka dhexeeya oo organizationkan free economic zoneka ay sameeyeen baa jira suuq oo africa oo horumar fiican ka socda ayaa jira laakiin dhanka kale markaad ka eegto walaal hogaamiyeyaasha wadamadaasi ka taliya intooda badan waa dictatoro hantidoodu waxay taalaa wadamada reer galbeedka waxaa control adag ku haya wadamada reer galbeedka oo aanay ka hor iman karin siyaasadahooda marka hadiiba ay timaado dowlado dimuqraadiya sida Niger oo kale oo wadanka kaliya ka badbaadid afgambiyada ahaa oo maanta ku biiray cadaadis badan pressure badan oo reer galbeedka kaga imanaya nimankan dictatorada ayaa sababay in ay soo noqnoqoto inuu dictator uu area-da ka taliyo oo aan loo ogolaanin inay dimuqraadiyad iyo xukun shacab helaan kaasi waxa uu ahaa Dr. Axmed Faarax Iidle Axmed Zaki oo ka faalooda xiriirka caalamiga ah oo iga waramayay waxa loo fasiran karo hadalka ka soo baxay Mali iyo Burkina Faso ee ay garab istaaga ugu muujiyeen Niger. waa tahay dhegeystayaal saacadda Afrikada bari haatan waxa ay tilmaamaysaa 5:00 xiliyadan oo kalena waxaad nooga barateen inaan dib idinkugu celino qodobada wararka caalamka ee BBC-da stuudiyaha waxay ugu sugan oo u diyaar ah Jamaal Cabdiraxmaan. imaaraadka carabta ayaa lagu soo waramayaa in ay 3 jibaari doonto mushaaraadka dhaqaatiirta Israa'iil haddii ay u guuraan wadamada khaliijka talaabadan ayaa daba socota shaqo joojin hal maalin ah oo toddobaadkii hore ay dhaqaatiirta Israa'iil ku sameeyeen dib u habeyn dhanka sharciga ah oo ay badan aaminsan yihiin inay dhaawici doonto dimuqraadiyadda inka badan 3,000 oo dhaqaatiir Israa'iiliyiin ah ayaa ku biiray koox ku sheekaysanaysa baraha bulshada iyagoo raadinaya talo ku saabsan u guurista dibadda oo ay ka guuraan dalkooda imaaraadka oo caadi ka dhigay xiriirka Israa'iil 3 sano ka hor ayaa sidoo kale sheegay inay bixinayso waxa loogu yaro fiisaha dahabiga ah oo uu ogolaanayo dhaqaatiirta Israa'iil joogitaan waqti dheer ah oo ay la socdaan faa'iidooyin kale toddobaadkii hore madaxa adeega caafimaadka Israa'iil ayaa kulan degdeg ah la yeeshay dhaqaatiirta isagoo ku booriyay inaysan dalka ka bixin Britain ayaa dalka ba'an ee dadka Yaziidiga ah lagu geystay dalka Ciraaq ku tilmaamtay xasuuq inka badan 5,000 ayaa la dilay markii kooxdu isku magacaawday dowladda Islaamka ay qabsatay dalkoodii hooyo 2014 xafiiska arrimaha dibadda ee London ayaa sheegay inay ka jawaabayaan go'aan maxkamadeed oo ay soo saartay maxkamad ku taala Jarmalka taasi oo xukunkeeda lagu xiray dagaalyahan IS ah oo adoonsaday haweeney Yaziidi ah iyo gabadheeda dambigaasi ay maxkamaddu ku tilmaamtay fal xasuuq warkan ayaa lagu sheegay in lagu soo beegay sanad guuradii 9aad ee xasuuqaasi Sweden ayaa sheegtay in laga yaabo inay booliska siiso awood ay uga hortagaan dadka gubaya quraanka kariimka ah ra'iisul wasaaraha dalka Ulf Kristersson ayaa ku adkaystay in mabaadi'dan xiriirtul qowlka ay sii jiri doonaan laakiin wuxuu sheegay in ay laga marmaan tahay in la qaado tallaabooyinkan ka dhanka ah gubista quraanka haddii ay jirto khatar cad oo amniga qaranka ah dhowr qof ayaa meel fagaare ku gubay kitaabka quraanka dalalka Sweden iyo sidoo kale Denmark waxaana arrintaasi si carar leh uga jawaabay dadka ku nool muslimiinta ku nool bariga dhexe Faransiiska ayaa sheegay inuu muwaadiniintiisa ka dadgurinaya dalka Niger kadib afgambigii halkaasi ka dhacay toddobaadkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay inay sidaasi u yeelayso weerar gacan ka hadal ah oo safaaradda Faransiiska ay ku qaadeen dad mudaharaadayaal ah axadii iyo xaqiiqda ah in hawada la xiray oo muwaadiniinteeda diyaaradaha caadiga aysan raaci karin tan iyo 2020 hogaamiyayaasha militariga waxay la wareegeen awoodda 4 wadan oo galbeedka Afrika ah urur goboleedka ECOWAS ayaa ku hanjabay inay awood u adeegsan doonaan sidii ay dib ugu soo celin lahaayeen madaxweynaha Niger Mohamed Bazoum hogaamiyayaasha militariga ee Burkina Faso iyo Mali ayaa sheegay inay u arki doonaan faragelin kasta oo militari shisheeye ee Niger inay tahay ku dhawaaqid dagaal oo iyaga ka dhan ah shirkadda Faransiiska ah ee Iran oo ka shaqeysa macdanta uraniumka ee Niger ayaa sheegtay in shaqadeeda aysan saameyn ku yeelan doonin dadgureyntan tiro shaqaale ah oo ajaanib ah ugu dambeyntiina ruushka ayaa sheegay inay burburiyeen 3 doonyo oo ah kuwa aan cidna wadin oo laga leeyahay dalka Ukraine kuwaasi oo doonayay inay weerar ku qaadaan 2 markab oo ay leeyihiin ciidamada badda ruushka oo maraya badda madow wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in weerarkan uu dhacay saacadihii hore uuna ka dhacay meel 340 kilomitir koonfur galbeed ka xigta Sevastopol ee Crimea
waxay sidoo kale hadda ku antacoonaysaa in ciidamadeeda badda ay burburiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine kuwaas oo bartilmaameedsanayay maraakiib ganacsi oo Ruushka leeyahay oo ku sii jeeday marinka Bosporus. shaqaalaha wasaaradda horumarinta dhaqaalaha ee Ruushka ayaa hadda loo sheegay inay ka soo shaqeeyaan guryahooda kadib markii diyaaradda aan duuliyaha lahayn ay lagu dhuftay dabaq sare ee ay wasaaraddu ku leedahay xaafadda ganacsiga ee ku taalla Moscow. isla dabaqan ayaa 2 habeen ka hor la beegsaday weerar diyaarad noocan oo kale ah. duqa magaalada Moscow ayaa sheegay in difaacyada cirka ay xalay ku soo rideen dhowr diyaaradood oo kale oo aan duuliyaha lahayn. jamaal cabdiraxmaan oo mahadsan yahay oo inala socodsiinayay qodobada wararka caalamka ee BBC-da ee xilligan la joogo. weli halkaad nagala socotaanna waa laanta af Soomaaliga. waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dunida iyo maanta oo qaybihiisa goordhow aad ku maqli doontaan. ardayda waxay ka kala yimaadeen North America, Mexico, waxay ka yimaadeen Canada iyo 24 state oo Mareykanka ah iyo Minnesota. marka waa 25 state oo Mareykanka ah iyo Canada iyo Mexico. waa tartan quraanka kariimka ah oo ka socda Mareykanka. goordhow ayaad maqli doontaan. hayeeshee markan sida warka caalamka baad ku maqlayseen, dowladda Sweden ayaa sheegtay inay ka baarandegayso sidii booliska dalkeeda ay u hortagi lahaayeen gubidda quraanka. shir jaraa'id oo caasimadda Stockholm ku qabtay ra'iisul wasaaraha dalkaas Ulf Kristersson ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay in ay weli ixtiraami doonaan mabaadi'da xorriyadda hadalka, balse loo baahan yahay tallaabooyinkan si meesha looga saaro khatarta ku timid amniga qaran ee waddankiisa. waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: Men så överväger nu alltså regeringen om en ändring av ordningslagen skulle vara. Dowladdu waxay ka baarandegaysaa inay isbeddel ku samayso sharciga kala dambeynta bulshada iyo qaabka loo fulinayo isbeddelkaas. Kama hadlayno in la xakameeyo xorriyadda hadalka, balse waxay arrintaasi khusaysaa arrimaha ay dadka isugu soo bixi karaan iyo oggolaanshaha la siinayo. waxaan rabnaa in maanka lagu hayo walaaca dhanka amniga ah ee guud ahaan dalka. taasi waxay u baahan tahay in si dhab ah looga fekero arrin muhiim ah. waa arrin aan lagu degdegi karin oo u baahan taxadar dheeraad ah. ra-iisul wasaaraha Sweden ayuu kaasi ahaa. ururka iskaashiga islaamka ayaa si adag u cambaareeyay falalka kitaabka quraanka lagu gubay dalalka Sweden iyo Denmark, waxaana uu ku tilmaamay kuwo dandaansi ah. kulan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee ururkaas ayaa loogu baaqay qaramada midoobay inay soo farageliso arrinta xilli cadaadis diblomaasi ay la kulmayaan dowladaha labadaasi wadan. dhanka kale, xildhibaan Leylo Cali Cilmi oo ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden ayaa sheegtay in xukuumadda dalkaasi aanay daacad ka ahayn wax ka qabashada quraan gubidda oo xubno ka mid ah ay aflagaadeeyeen islaamka. waxa ay u warantay waryahayaga Axmed Bader. walaan horta waa ka xunnahay kolay haddaanu nahay bulshada muslimka ah ee ku nool dalka Sweden, gaar ahaan kuwayaga madaxda iyo dadka kale ee mas'uuliyiinta, aqoon-yahaniinta iyo dhammaan dadka shacabka ee muslimiinta ee Sweden ku nool way ka xun yihiin gafka loo geysanayo quraanka iyo dadka muslimiinta ee Sweden ku nool. yani tilaabadan waa tilaabo runtii cunsuriyad ka dhan ah oo lagu hayo dadka muslimiinta. marka kolay gafna loo geysanayo oo bareera baan u aragnaa. marka waa waxaan aad uga xunnahay. maxay kula tahay sababta muddooyinkii ugu dambeeya soo celcelisay in qof uu ku dhiirado in meel fagaara uu ku gubo kitaabka quraanka kariimka ah? horta Sweden waxaa ka jirta xorriyatul qowl, waxaa ka jirta qofku inuu xor u lahaado diin, wuxuuna xor u leeyahay dee kolley kitaabka quraanka maahane wixii kutub oo dhan horta dhan waa la gubi karaa. sharciga qaanuunka Sweden baa banaynaysa. laakiin arrintan Sweden ka soo siyaado waxaa sababaya laba waxyaalood. 2022 Sweden doorasho galaysay oo xisbiyada cunsuriga iyo dad shakhsiyaad cunsuriyo ku shaqaysanaya inay quraanka gubaan iyagoo raba markaa inay u muujiyaan ummadda muslimka inay yihiin ummad muslina oo aan ku noolaan karin wadamada dimuqraadiyadda sida Sweden oo kale. macnaha iyagu waxay u gubayeen quraanka si dadka muslimka ay Sweden ku nool inay falal ay jawaab ay ka bixiyaan. haddana waxaa taasoo dhex gashay oo isla xilligaana socotay processkii NATO, taasoo dee looga baahday taageero Turki oo diiday markii ugu horeysay. Turki oo runtiina dhariishay kitaabka la gubayo. arrintaas baa dabkaasaa lagu sii kicinayay. marka ajendooyin kala duwan baa meeshaan jira, laakiin mid ay tahay cunsuriyad ka dhan ah dadka muslimiinta
ee Sweden lagu hayo iyo ajenda kale oo ah in la carqaladeeyo processka NATO. dowladda Sweden waxay sheegtay in ay wado dadaalo ay wax uga bedelayso shuruucda si loo mamnuuco gubidda Quraanka Kariimka arrintaasi iyo dadaaladaasi socdo bal ka waran. dadaaladaba inay jiraan anigu ma arko run ahaantii dowladda Sweden waa dowlad xisbiga ugu weyn ee dowladdan ay ku dhisan tahay waa xisbi cunsuriya madaxdooda ugu sarreysa maalin walba dadka muslimiinta aflagaadeeya waxa hadda ugu dambeeyay gudoomiyaasha baarlamaanka gudoomiye kamid ah oo gole gudoomiye ka ah baa hadda maalin dhaweyd ugu dambeysay Twitter ka aflagaadeynayay dadka muslimiinta yani lama oran karo dowladdu daacad bay ka tahay dowladdu wasiirka amniga ama amniga civiliga maalin dhaweyd hadlayo lahaa يعني فلالكان waxaa geysanaya shakhsiyaad ee dawladdu yani islaamka ma soo horjeedo cadawna kuma laakiin waa arrinkaas wuxuu ku beenoobayaa isla maalinta waxa hadlay xisbiga ugu weyn ee dawladda hoos imaada oo aflagaadeynaya quraanka iyo muslimiinta iyo nabi maxamed marka lama oran karo dawladda Sweden raali kama aha waayo way ka tahay raali haday raali ka ahayn waxay wax ka qaban lahaayeen mas'uuliyiintooda ee aflagaadada ku haya shacabka muslimka ee wadankan ku nool marka lama oran karo inay dawladdu dadaal ugu jirto in arrinta wax ka qabato waa been weeyaan dawladdu waxay dadaal ugu jirtaa in processka NATO uusan wax khalkhal ka galin waxay rabaan inay xaaladda dejiyaan waxay isleeyihiin nimankan Turki armay heshiiskii hadda ugu dambeeyay ee ogolaanshaha dib idinkaga noqdaan waxay kaloo ilaalinayaan dhaqaalahooda adiga waxaad ka mid tahay baarlamaanka dalka Sweden haddii aad tihiin baarlamaanka door intee la dhan ayaad ka qaadan kartaan joojinta arrintani iyo sameynta shuruuciyo looga hortagayo baarlamaanku xisbiyo kala duwan weeyaan baarlamaanku wax weeyaan wuxuu ka kooban yahay xisbiyo kala duwan xisbiyaduna mabaadi kala duwan bay wadataa dawladda waxa soo dhisay nimanka hadda maanta baarlamaanka awoodda ugu weyn ku haysta waana nimanka maanta dalka hogaaminaya xisbiga cunsuriga xisbiga liberaalka xisbiga moderatka iyo xisbiga Christian Democratska ba hogaaminaya dalka ayagana awoodda baarlamaanka maanta haysta marka lama oran karo annaga awood ahaan baarlamaan ahaan baan wax qaban karnaa waayo tira ahaan awood iyaga haysta aqlabiyadda iyaga haysta marka annagu laakiin waxaan ku jirnaa dadaal ah in la fiiriyo sharciga cunsuriyadda oo Sweden oo ilaalinaysa in ummad loo gafo diinteeda loo gafo in sharciga la adkeeyo maxkamadaha wadankuna inay ku dhaqmaan sharcigaas anu kale qof kasto muslim oo Sweden ku degan oo ku nool oo muwaadin waxaan leeyahay in si nabadaynu wax ku gaarno saasi waxay ahayd xildhibaan Leila Cali Cilmi oo ka tirsan baarlamaanka dalka Sweden oo Axmed Badar u waramaysay isla wararka quraanka ayaan ku guda jirnaaye tartan quraanka kariimka ah oo ay ka qayb galayaan arday Soomaali ah oo ka socda Mareykanka iyo dalalka dariska la ah ayaa ka furmay gobolka Minnesota ardayda kaalmaha hore ka gala tartanka ayaa ku guuleysan doona abaalmarin uu kamid yahay gaari iyo in la geeyo cumro aadan sheekh cali oo kamid ah qabanqaabayaasha tartanka ayaa isla tartankaasi ugu waramay wariye Siyaad Saciid Saalax hadda waxaa la marayaa sanadkii 9aad marka marxalad kala duwan soo maray sanadkan waxa is rajiis gareeyay 634 arday waxa la soo maray tasfiya uula waxa la yiraahdo ama israareeb marka waxa hadda soo baxay 500 arday ayaa hadda soo hartay tartanka maanta waa opening ceremony maanta ahaa July 31deedii marka culimadii meel walba adduunka ka kala yimid ayaa hadda xafladii ka soo qayb galay marka birina waxa bilaabmi doona tartanka quraanka saxda waa gartay aadan waxaad iga warantaa ardayda ku tartamaysa tartanka sanadkan oo kii 9aad halkee ka kala yimaadeen ardayda waxa ka kala yimaadeen North America Mexico waxay ka yimaadeen Canada iyo 24 state oo Mareykanka ah iyo Minnesota marka waa 25 state oo Mareykanka ah iyo Canada iyo Mexico sanadba sanadka dambeeya waxaad bedeshaan nidaamka iyo waxyaabaha lagu guuleysto labadii sano ugu dambeeyay waxaan xusuustaa in baabuur lagu guuleystay sanadkan maxaa cusub maxaase lagu guuleysan doonaa tartanka sanadkan baabuurta waa lagu guuleysan doonaa ardayda lacag ay heli doonaan lacagii awaadkii awal cimradana sidii hore ay u socotay cimradana waa heli doonaan waa gartay lacag baa soo hadal qaaday lacagta ugu badan oo qofka ku guuleysta 30 juz oo heli karo maxay noqonaysaa lacagta waa kala duwan tahay waa dhowr iyo 10,000 hadda ima hor yaalaan laakiin waa dhowr iyo 10,000 marba si waay marka qofkii koowaad baabuur heli doonaa qofka ku xigana wuxuu heli doonaa 12,000 website-keena ugu qoran imamshatibi.org waxaad iga warantaa tartanka ma gabdhaha iyo wiilasha mid u dhaxeeya mise waa mid ay
gabdhuhuna goonidooda u tartamayaan wiilashooduna goonidooda ay u tartami doonaan sida imaam shaatibi hore loogu bartayba ardayda hadday 20 ka badan yihiin waa la kala qaybinaya gabdhihii iyo wiilashii si gaar ah maaragtay uga qayb galayaan u tartami doonaan sanadkan 30 juz waa gabdhaha iyo wiilasha waa separate waa kala duwan yihiin 20 juz maadaama ay gabdhaha yar yihiin waa la isku daray sanadkan waa mix macnaa wiilashii iyo gabdhihii waa tartami doonaan laakiin inta kale 15 juz waa separate waa gabdhahana waa tartami doonaan gooniye u tartami doonaan wiilashii 10 juz sidoo kale 5 juz saasoo kale 1 juzna saasoo kale waa gartay aadan dalkan waxaa laga cawdaa dhibaato badan oo haysa dhalinyarada halkana tartan quraana lagu tartamaya marka maxay waalidiinta sidee ugu diyaar garoobaan ama tartankan uu ka caawin karaa xagga dhalinyarada dhibaatooyinkooda waa su'aal fiican runtii qofkii waalidkii u baahan in maaragtay caruurtiisii tartankaasi ama quraanka ama dugsiyada geeyo waa dadka runtii waxaan leenahay ka badbaaday dhibaatooyinka maaragtay wadankan waalidiinta iyagaaba 24 saac iyaga ku mashquulsan macallinkii dugsigii iyo musaabaqada tartankeeda diyaar garowgeedii marka ilmihiina laf ahaantoodii maaragtay haddii abaalmarin intaas la siiyo cimro la geeyo marka fursadaas ugu fiican qofkii inuusan maaragtay khayrkii masaajidadii iyo quraan barashadii uu maaragtay uu ka fog yahay marka waa qayb looga badbaadin karo caruurta in maaragtay quraanka ay bartaan ay xifdiyaan kadibna iyagana la abaalmariyo role model ay noqdaan ardaydii kale ee adduunka tartan ka qayb galay ay ku daydaan ugu dambeyntii tartankan sida ii muuqata waxaa ku baxaya qarash badan waxa uu soconayaa muddo 6 cisho ah qarashkaas xaguu ka yimaadaa yaase idinka caawiya waa su'aal fiican qarashkaasi community-ga bixiya dad baa maaragtay community-ga ayaa dadaa sir u baxsada dadaa maaragtay tabarruc u baxsada marka qof walbana waa ka qayb qaadan karaa laakiin wax dawlad iyo organization iyo cid soo caawiso oo ama maaragtay ku xiran ma lahan marka dadkaasi oo community-gaasi ah ayaa qayb ka qaata oo maaragtay qof walba ka mid ah insha Allah kaasi waxa uu ahaa aadan sheekh cali oo ka mid ah qabanqaabayaasha tartanka quraanka kariimka ee ka socda Mareykanka oo u waramayay Siyaad Saciid Saalax wali halka aad nagala socotaana waa BBC ka dhagaysa BBC Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com markana Djibouti ayaa soo bandhigtay markab weyn oo loogu talagalay inuu dayactir iyo saadbixin u sameeyo maraakiibta ganacsiga iyo kuwa ciidan ee ku ciladooba xeebaha dalkaasi markabkan oo noociisa ay leedahay Kenya oo kaliya ayaa la filayaa inuu wax badan ka taro dayactirka maraakiibta sida uu ku soo waramayo wariye Maxamuud Cismaan Bulxan markabkan ayaa waxa uu ka qayb qaadan doonaa hagaajinta maraakiibta sida gaarka loo leeyahay kuwa shixnadaha u kala gudbiya caalamka iyo waliba maraakiibta ciidamada militariga ay isticmaalaan ee ka goosha badaha markabkan waxa ay dhan tahay awoodiisu inuu soo jiido amba uu soo qaado markab dhan ilaa 50,000 oo tan waana markab noociisa ugu horeeyay ee laga hirgeliyay wadamada geeska Afrika iyada oo markab mid lamida noocan laga helo dalka Kenya xeebtiisa Mombasa waxaa markabkan saaran 25 farsamo yaqaan amba injineer oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan hagaajinta maraakiibta ku xumaada badda waxaa xafladda furitaanka markabkaasi ka qayb galay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele xubnaha xukuumadda iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa dhinaca dekedaha dalka Djibouti ugu horeyntii munaasabadaasi waxaa ka hadlay madaxweyne Geele waxaana uu sheegay in mashruucan uu yahay mashruuc dawladda Djibouti muddo ay ku taamaysay waxa weeyaan mashruuc annagu aan u baahnayn meeshii uu poorba jiraba waa inuu hareerihiisaan laga waayin kani oo kale waxa weeyaan dayactirka waxa weeyaan hagaajista waxa weeyaan dib u dhiska intaas oo dhan wixii badduna waa cilmi gooni ah waxa weeyaan khibrad gooni ah waxaan isleenahay waad dhadhaweyseen haddii toole in boorka Djibouti uu noqdo lagama maarmaan 1 iyo 2 iyo 3ba aad baan maalgelin weyn ugu samaynay waxaanan jecelnahay in aan dadka wixii baahi ay hayso ee maraakiib la tacaalaya inay halkan keenaan oo loogu hagaajiyo loogu dayactiro dhaqaaluhuna wuxuu ku fiicnaanayaa marka waxaaga aad hagaajisan karayso dhankiisa madaxa dekedaha Djibouti Abubakar Umar Xadi ayaa waxa uu sheegay in mashruucan uu wax weyn ka bedeli doono isku socodka dhinaca maraakiibta badda cas waxaana uu sheegay in fursado uu abuuri doono dhalinyarada dalka Djibouti isagoo arrimaha ka hadlaya waxa uu yiri
waxay noogu dhow Mombasa 20,000 oo tan way kan oo kale annaguna waxa weeyaan 50,000 baan qaadi karnaa aan dayactiri karnaa maraakiib 50,000 oo tan marka waa fursad wanaagsan geerish maraakiibta way waa maalgelin baan sameynay oo 100% ay leedahay dawladda Djibouti Great Horn Investment Holding ayaa leh bahalkan maxay markabkan dayactirka maraakiibta 25 engineers ayaan dirnay oo soo tababartay inta ka badan waxaan la shaqeynay liigan la shaqeynay dadka jaamacadda Djibouti ayaan la shaqeynay dadkii laxaamada garanayay dadkii mataqaanaa garanayay tooliyaga ahaa mekaaniga electrotechnicianka ahaa gabi waa noo diyaar intaan galay mashruucan kan oo kala horta waxaan bilownaa dadkana dhisno codkaas ayaa u dambeeyay warbixintii uu inala socodsiinayay Maxamuud Cismaan Bulxan markana qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 2,000 oo qof lagu qasbay inay ka qaxaan rabshadaha u dhaxeeya kooxaha iska soo horjeeda ee ku dagaalamaya xerada qaxootiga Falastiiniyiinta ee Lubnaan mas'uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa cambaareeyay dagaalka waxayna ku tilmaameen mid ammaanka xerooyinkaasi halis ku ah Xasan Sheekh Cumar ayaa noo faahfaahinaya isku dhacyadan u dhaxeeya madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas ee Fatah iyo kooxaha Islaamiyiinta ayaa waxa ku dhintay 11 qof sida ay sheegtay qaramada midoobay xabad joojin ayaa hadda la isku afgartay inkastoo rasaas weli la soo sheegayo xeradan oo lagu magacaabo Cayn al-Xilwa waxaa la aasaasay sanadkii 1948 waana tan ugu weyn dalka Lubnaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay ku nool yihiin in ka badan 6,300 oo qaxooti diiwaan gashan balse qiyaasaha qaar ayaa sheegaya in tirada dadka intaa ay ka badan tahay xerada oo ku taala meel u dhow magaalada Koonfureed ee Sidon ayaa waxa ay ka fog tahay meelaha ciidamada ammaanka ee Lubnaan ay ku xoogan yihiin waxaana loo daayay kooxaha isku haya xerada si ay u ilaashadaan amnigeeda laakiin khilaafyada kooxahaasi dhexmara ayaa caadi ka noqday halka rabshadaha ayaa qarxay sabtidii markii xubin ka tirsan kooxaha Islaamiyiinta la dilay sida ay ku warantay wakaaladda wararka AFP oo soo xiganaysa ilaa aan la magacaabin oo ku sugan xerada xiisadda ayaana sii socotay ilaa Axaddii taasoo ugu dambeysay geeridii taliye ka tirsan Fatah iyo dhowr ka mid ah kaaliyaashiisa xabad joojin ayaa maalintii Axadda lagu heshiiyey waxaana la sheegay in xabad joojintaasi ay si degdeg ah u bururtay waxaana mar kale la sheegay in dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka qaybihiisa kala duwan oo ay ku jiraan lidka taangiyada oo ka dhacay xerada in ka badan 40 qof ayaa ku dhaawacantay iska horimaadka oo ay ku jiraan shaqaale gargaar oo ka tirsan qaramada midoobay waxaana waxyeello soo gaartay 2 iskuul sida ay sheegtay qaramada midoobay gaar ahaan hay'adda u qaabilsan qaxootiga xabad joojin labaad ayaa Isniintii la gaaray kadib kulan lala qaatay xildhibaanka deegaankaasi waxaana hadda ay xaaladdu u muuqataa mid soo roonaanaysa inkastoo weli rasaasta la maqlayo madaxtooyada Falastiiniyiinta ayaa cambaareysay dagaalka waxaana ay ku tilmaantay ammaanka xeradaasi mid halis ah mahadsanid Xasan xeebaha dalka Ghana ayaa weli waxaa ka muuqda raad hore oo ah xasuusta haraagii ganacsigii dadkii la doonsan jiray qayb uu dhererkeedu gaaraya 560 kilomitir ayaa waxaa ku yaala in ka badan 20 qalcadood oo dadka lagu xiran jiray marka la dhoofinayo wariyaha BBC-da Thomas Nadi ayaa warbixintan soo diray waxaana soo jeedinaya Saciid Xasan Anteeno badweynta Atlantiga ee Abense ee dhacda koonfurta dalka Ghana koox cilmi baarayaal ah oo dabagala waxyaabaha qadiimiga ah ayaa ku mashquulsan shaqada gudaha goob la yiraahdo Fort Amsterdam ee caanka ah waxyaabaha ku qarsoon qalcadan ayaa waxay ka ogaadeen burburka dhismo ay aaminsan yihiin inuu yahay qalcadii ugu horeysay ee Ingiriisku ka sameyn jiray ka ganacsiga adoonsiga Afrika taasoo la dhisay sanadkii 1631 miilaadiga waxaan ku dhowahay inaan galo mid ka mid ah qolalka ay cilmi baarayaashu ku mashquulsan yihiin inay qodaan asaaska goob taas oo loo yaqaan Fort Slave Fort ee ah goobihii ugu horeeyay Ingiriiska ee goobta la yiraahdo Fort Cormantin markaan waan ku biirayaa iyaga si aan u arko waxyaabaha ay ku mashquulsan yihiin ardayga soo qalin jabiyay ee halkan qodayay ayaa niyad jabay kadibna maalin maalmaha ka mid ah ayaan soo galnay oo dhagaxaanta aad arkayso qaar halkan lagu soo bandhigay ayuu bilaabay inuu qaar sawiro waxaan si lama filaana ugu iri taasi waa derbi cad Professor Christopher Dicors waa gudoomiyaha qaybta qaabilsan taariikhdii hore ee dugsiga Maxwell isaga iyo kooxdiisu waxay qayb ka ahaayeen mashruuc cilmi baariseed oo halkan 3 sano ka socday oo way la socdeen farshaxanada aan ka helnay gudaha goobta la qodayay ee la xiriirta taariikhdii hore ee Dutchka tani waxay noo sheegaysaa inaan haysano aasaaska qalcadii hore ee Ingiriiska
qalcadda fort amsterdam oo dhowaan la dhisay ayaa laga casriyey dusha sare ee haraadigii qalcad ingiriisku lahaa kadib markii holandeesku ay qabsadeen goobtani dagaal ba'an kadib sanadkii 1665 ee miilaadiga. waa qaybtii ingiriiska ugu horreysay ee ka baxda qaaradda afrika meel kasta oo afrika ka mid ah ma aha oo keliya gaanada casriga ah. tani waxay dhacday wakhti aad iyo aad muhiim ugu ah taariikhda dhanka badda atlantiga. waa xilliga uu isbeddelku dhacay ee inta u dhaxaysa markii diiradda ganacsiga dahabka laga wareejiyey loona weeciyey ka ganacsiga addoonsiga, taasoo ah mid ka mid ah waxyaabaha muhimka ka dhigaya shaac ka qaadista aasaaska qalcadda Fort Formentine ee xiisaha leh. waxaan helay waa tuubo. aan eegno hadda waa maxay waxa kani. waxay u eg tahay tuubo ay la socoto hawo qiiq ah ama wax kale. haatani gebi ahaanba waxay leedahay soo jiidasho. inkastoo ay u eg tahay tuubada qiiqa, waxaan aragnaa in tuubada noocan ah ay sidoo kale aad u kala duwan tahay wakhtiga aan halkan kaga hadlayno horaantii qarnigii 17aad. waxaad arki kartaa in kuwa halkan gaar ahaan inay yihiin kuwa aad u yaryar. sababtu waxay tahay sida aad la socotaan tubaakada waxay ahayd geed laga helo qaaradda Ameerika, sidaa awgeed Afrika iyo Yurubna toona lagama isticmaali jirin ilaa badweynta Atlantiga laga bilaabay in dhinaca kale lagaga talaabiyo dadka la adoonsanayo. sidaas darteed markii ugu horreysay waxay soo gaartay qaaradda Yurub, iyadoo markaa kadibna ay gaartay qaaradda Afrika. waxay ahayd xaqiiqdii mid aad qaali u ah. waxaa loogu magac daray tuulada Cormantise ee u dhow qalcadda ingiriiska xarunta u ahayd, iyadoo door muhiim ah ka ciyaartay marxaladihii ugu horreeyey ee ka ganacsiga dadka la adoonsado. kumanaan rag iyo dumar ah ayaa halkan si khasab ah looga diray Karibiyaanka si ay uga shaqeeyaan beeraha. laga soo bilaabo wakhtigii ugu dheeraa ee la dhisay ee sanadkii 1631 ilaa iyo 1665 markii holandeesku ay qabsadeen. inta badan wakhtigaas waxaa jiray shirkad ingiriisa oo la yidhaahdo Guinea Company, waxaana ay aad u xiisaynayeen ganacsiga dahabka. Michael Jarvis waa professor ku takhasusay taariikhda Atlantiga iyo dijitaalka ee jaamacadda Rochester. waxay ahayd 1663 boqorkii England Charleska labaad waxa uu abuuray boqornimo loo rarayo dhanka Afrika, iyadoo kaasina uu diiradda saarayo ka ganacsiga dadka la adoonsado halkii uu ka ahaan lahaa ka ganacsiga dahabka. Cormantin waa magac hadda lala xiriirinayo dad badan oo Afrikaan ah oo la adoonsaday oo ka yimid xeebta dahabka. haatanna ah xilligan casriga ah dalka Ghana. goob dhaqameed muhiim ah ayaan waxaan la hadalnay ninka la yidhaahdo Kingsley Nitamo oo ah agaasimaha fulinta ee madxafka Ghana iyo guddiga taalooyinka oo go'aansaday inuu ilaaliyo. helitaankan cusub waxaan aaminsanahay inuu caawinayo sheekada Fort Amsterdam, waxaana ay soo jiidan doontaa dad badan si ay u yimaadaan Fort Amsterdam. iyo tan kale ee ka sii muhiimsan oo ah in ay qayb weyn ka qaadato kor u qaadidda dhaqaalaha maxalliga ah ee Abanze. kooxda cilmi-baaristu ayaa waxa ay hadda sii wadi doonaan qodistooda dhowrka sano soo socotay, waxayna dhowaan rajeynayaan inay dadka la wadaagaan xitaa faahfaahin dheeraad ah ku saabsan waxyaabaha taariikhiga ah ee ay shaaca ka qaadayaan. saciid xasan anteno waa uu mahadsan yahay oo inala socodsiinayey warbixintii wariyaha BBC-da ee Thomas Nadi. weli halkaad nagala socotaana waa BBC. waxaanu soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena. bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal. wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin. bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah. haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka. bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo. bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta. waa hagaag dhegeystayaal, markana ciyaarihii aan eegna ee gaar ahaan suuqa kala iibsiga ee ciyaartooyda waxaa lagu soo waramayaa in kooxda Bayern Munich ay isku diyaarinayso in ay jebiso rikoorka cusub ee kooxdeeda oo ay bixiso lacag dhan 80 milyan oo euro si ay ugula soo wareegto ciyaaryahanka 30 sano jirka ah ee qadka weerarka ugu dheela Harry Kane waa weerarka ugu dheela Ingiriiska iyo Tottenham iyo Bayern Munich ayaa lagu soo waramayaa in ay isniintii wada hadal ku yeesheen London. bayaan laga filayo in
25 milyan oo pound ay ku kordhiso lacagta ay doonayso inay kula wareegto Harry Kane. Tottenham iyaduna waxaa lagu soo waramayaa in lacagtaas lagu iibiyo Kane ay u adeegsan doonto inay kooxdeeda keento ciyaaryahanka qadka dhexe ugu dheela Barcelona iyo Ivory Coast ee Frankie Kessie oo 26 sano jir ah iyo 28 sano jirka qadka dhexe ugu dheela Rahed daafaca ugu dheela Faransiiska ee Clement Lenglet. dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkii dunida iyo maanta oo anigoo ah Kawthar Maxamed